Assalaamu calaykum waraxmatullah. Geeridu waa xaq oo qof walba adduunkan waa ka tegayaa. Laakiin maalinta aad ku qoran tahay baska aakhiro ka hor ma dhacayso inaad dunidan ka huleeshid. Haddaba maanta waxaan idiin hayaa sheekada laba nin oo dhowr mar sigtay laakiin uusan malagoodu gelin. Sida ninkii labada jeer ka badbaaday nukliyeerkii lagu qarxiyey dushiisa. Balse marka hore sheekada ninka koowaad oo la dhihi jiray Bill Morgan. Ninkan oo u dhashay waddanka Australia ayaa waxa uu ahaa dareewal wada gaari xamuula. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu galay shil khatar ah oo naftiisa halis geliyey. Markii cisbitaalka la keenay ay dhibaato kala qabsatay oo allergy ka qaaday dawadii ama antibiyootigii lagu daaweynayay. Arrimahaas oo isbiirsaday ayaa waxay keeneen inuu ninkani wadnuhu istaago. Isagu wadnuhu istaagnaa muddo gaaraysa 14 daqiiqo. Markaas kadib ayay dhakhaatiirtu ku guuleysteen inay wadnaha dib uga shaqaysiiyaan. Dad badan ayaa waxay u fahansan yihiin in mar haddii wadnuhu istaago macnaheedu yahay in qofkaasi dhintay. Laakiin mararka qaarkood waxaa lagu guuleysan karaa in wadnaha dib loo kiciyo oo markaasi kadib uu caadi u shaqeeyo. Dhakhaatiirta ayaa waxay dhahaan haddii wadnuhu istaagnaado muddo ka badan 20 daqiiqo, unugyada maskaxda ayaa bakhtinaya. Maadaama ay maskaxduna tahay xubinta ugu muhiimsan jirka, maamushana garaadka qofka iyo dhaqdhaqaaqiisaba, hadday wax gaaraan ay adag tahay in laga soo noqdo. Laakiin iyadoo ay saasi tahay ayaa waxaa la arkay xaalado mararka qaarkood ay dhakhaatiirtu xataa ka yaabaan, si in dad saacad wax ka badan wadnuhu istaagnaa markii wadnahooda lagu xiro qarabka kiciya, ay muddo kadib caadi noqdaan oo uu wadnahoodu caadi u shaqeeyo. Haddaba ninkan la dhihi jiray Bill Morgan ayay dhakhaatiirtu wadnihiisa soo kiciyeen. Waxaana uu galay koomo isaga oo qalabkaasi wadnihiisa caawinayay. Dhakhaatiirta ayaa waxa ay dhaheen waxa ay u badan tahay in ninkani uusan ka kacayn koomada. Laakiin 12 bari kadib markii uu koomada ku jiray ayuu ninkani koomadii ka soo kacay, isagoo aad moodid inuu caafimaad qabo oo caadi u sheekaynaya. Haddaba ninkaas ayaa cisbitaalkii ka baxay isagoo noloshiisa si dabiici ah u watay, waxaana uu goostay inuusan dib ugu laaban shaqadiisii ahayd inuu gaari xamuul ah wado. Muddo kadib ayaa waxa uu gatay bakhtiyaal nasiib ama lottery. Bakhtiyaal nasiibkan oo wadamada dibadda aad looga isticmaalo, lotteryna loo yaqaan, ayaa dad badan lacag isaga khasaarayaan. Sharikaadka lotteryga sameeyana ay noqdaan kuwa ka taajira. Waxaana aad u yar inay dadku ku guuleystaan lotterygaas oo ay lacag ka helaan. Laakiin dad badan oo hunguri badan ka hayo inay lacag badan oo aysan shaqayn helaan inay ku guuleystaan ayaa iska khasaariya lacagtooda iyagoo aan waxba ku guuleysan. Laakiin markii Morgan uu furay lotterygii ama bakhtiyaal nasiibkii ayaa wuxuu arkay inuu ku guuleystay gaari qiimihiisu dhan yahay $20,000. Haddaba ninkan geerida ku sigtay haddana bakhtiyaal nasiibka ku guuleystay ayaa wargeysyada iyo TV-yadu ka war heleen. TV ka shaqeeya magaalada Melbourne ayaa la soo xiriiray ninkan si uu u waraysto. Haddaba si ay u duubaan ayaa waxa ay geeyeen dukaan uu ka gato lottery. Laakiin arrinta yaabka ayaa waxay noqotay in ninkaasi markii uu lotteryga furay uu haddana abaalmarin kale ku guuleystay oo markaan aad uga badnayd wixii uu horay ugu guuleystay. Lacag ahayd $250,000 ayuu ku guuleystay iyadoo si toos ah kaamiraduhu u duubayeen. Sheekadiisaas oo dhacday 1999 ayaa wargeysyada caalamka oo dhan wax ka qoreen, sida CNN oo iyadu warbixintan halkan ka muuqata qortay, cinwaanna uga dhigtay Australian geeri ku sigtay kana badbaaday ayaa 2 jeer ku guuleystay lottery. Sheekada ninka labaadan soo qaadanayno ayaa waxaa la dhahaa Yamaguchi, oo ahaa nin Jabaaniis oo noolaa xilliyadii nukliyeerka lagu riday magaalooyinka Japan ee uu Mareykanku ku duqeeyay bambaanooyinkaas. Xilligii dagaalkii labaad ee adduunka markii Jarmalka looga adkaaday dagaalka ayaa waxaa Japan ay xulufadu ka dalbadeen inay isdhiibaan. Japan ayaa diiday inay isdhiibto. Mareykanka ayaa waxa ay xilliga ogaadeen sida loo sameeyo nukliyeerka. Bishii August 6, 1945 ayaa diyaaradaha Mareykanku waxay bambaano nukliyeer ah ku dhufteen magaalada Hiroshima, taasoo isla markiiba dishay dad kor u dhaafaya 70,000 burburisayna 70% guryihii magaalada. 3 maalin kadibna waxa uu Mareykanku duqeyn kale la tiigsaday magaalada Nagasaki. Labadaasi magaalo ayaa waxa ku dhintay dad lagu qiyaasay 200,000. Haddaba ninkan maanta ka hadlayno ayaa waxa uu deganaa magaalada Nagasaki, laakiin maalintii Hiroshima la duqeynayay ayaa waxa uu safar shaqo ah ku aaday xagaagaas magaaladaas, isagoo 3 bilood qorshihiisu ahayd inuu halkaasi ka shaqeeyo. Ninkan ayaa waxa uu u shaqayn jiray shirkadda caanka ah ee Mitsubishi.
maalintii magaalada la duqeynayay ayay taladiisu ahayd inuu magaalada ka tago. 8:15 subaxnimo ayaa waxa uu arkay wax baarashuud u eg oo cirka ka soo dhacaya meel aan isaga sidaas uga fogeyn. wax yar kadib ayaa waxa uu arkay qarax aad u weyn oo isaga dhulka ka tuuray, markaas oo uu dhaawac soo gaaray isagoo ay dhagihiisu qarxeen muddana uu indhaha wax ka arki waayay. jirkiisa qayb ka mid ahna uu gubniin saameeyey. muddo kadib ayuu soo baraarugay isagoo u guurguurtay meel uu galo. qaraxa nukliyeerka ayaa waxa uu u jiray masaafo dhan 3 kiiloomitir. laakiin ninkan ayaa subaxii dambe waxa uu aaday magaaladii uu ka yimi ee Nagasaki, halkaas oo dhaawacyadiisii looga daweeyey, meelihii uu ka gubtayna shaafado looga xiray. Yamaguchi ayaan cisbitaalka waqti badan ku jirin, inkastoo qaybo ka mid ah jirkiisu ay dhaawac ahaayeen. ayaa maalintii bisha 9 ahayd 3 bari kadib maalintii uu qaraxii hore ka ag dhacay ayaa waxa uu soo aaday shaqadiisii. asxaabtii iyo dadkii ay shirkadda iskala shaqaynayeen ayaa waxa ay ka wareysanayeen sida ay wax u dhaceen iyo waxa uu arkay. markii ay saacadu ahayd 11 subaxnimo ayaa waxa ay ka war heleen qarax kale oo magaaladii kale uga daba yimi. markaan ayaa waxa uu qaraxu u jiray 3 kiiloomitir iyo bar, laakiin nasiibkiisa markaan dhaawac weyni ma soo gaarin oo gurigii uu ku jiray ayaa badbaadiyey, inkastoo uu madax xanuun weyn dareemayay muddo ka badan usbuuc. Yamaguchi ayaa waxa uu dhintay 2010 isagoo 93 jir ah, isagoo u dhintay cudurka kansarka. islaantiisa ayaa iyaduna mid ka mid ah qaraxyadaas ka badbaaday, waxaana ay u dhimatay kansar kaga dhacay beerka iyo kilida. dowladda Japan ayaa ninkan kaligiis u ictiraafsan inuu ka badbaaday labadaasi qarax, inkastoo ay dhici karto inay jiraan dad kale oo aan u soo caanbixin sida Yamaguchi.